بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan shirkan jaraa'id u qabtay inaan la socodsiiyo maanta iyo xaaladaha dalka ka jira guud ahaan. dadka Soomaaliyeed way og yihiin dalkeena dagaal ayaan ku jirnay, shabaabaan dagaal kula jirnaa. niman dhulkeen inay dhinac goostaan raba ayaa ayana dagaal diblomaasiyadeed aan kula jirnaa. dhinac kalena dawlad dhisidii iyo dastuurkii ansixintiisii iyo dawladdii stateki iyo hay-adihii dawladnimada in la dhiso ayaa ayada dhinac ka wadnaa. dalku marka sidaas ayuu dadaal ugu jiraa. waxaan rabaa marka maanta halkan usoo istaagay inaan u sheego dadka Soomaaliyeed saaxiibo badan oo caalami ah ayaan leenahay oo aan dhammaantoodna uga mahad celinayno xilliyada adkaa ee Soomaaliya ay soo garab istaageen guud ahaan. laakiin Soomaaliya waxaa lagu kala duwanaay marmarka qaarkood qaabka loo garab istaagay iyo waqtiga la garab istaagay intaba. waxaan si gaar ah rabaa marka dadkaas faraha badanna iyo dawladahaas faraha badanna iyo hay-adahaas faraha badan oo Soomaaliya soo garab istaagay waqtiyadii u baahnayd inaan ka soo qaado hal dawlad oo maanta duruufta taagan awgeedna aan uga soo dhex bixin. waa dawladda walaalaha ah ee Turkiga. Turkida Soomaaliya taariikh fog oo qarniyaal ahna waa nagala dhexaysaa oo ilaa qarnigii 14aad iyo wixii ka dambeeyey iyo wax lamida iyo ah. waxaa kaloo nagala dhexeeya Turkida taariikh dhow oo ay nagu garab istaageen duruufeena gaarka. Turkiya waa dal caalamkana garab istaagay ka mid yihiin, laakiin waxa ay macnaha gaarka noogu leeyihiin waxa waaye qaabka ay noo garab istaageen. maalintii dadkeena majaacada ee haysay ee baahida haysay macaluusha ay jirtayna waa noo yimaadeen. madaxweynaha hadda dalka Turkiga ka tagay ra'iisul wasaare ah iyo caa'iladiisii iyo golihiisa wasiirada iyo ay maxaa noo imaadeen iyo baarlamaankiisa iyo xukuumaddiisa oo dhan ayaa Soomaaliya yimid, ayadoo waagaa Soomaaliya meelaan la aadin oon la tegin ay tahay. gabdhaha ajnabiga ah ee Soomaalida aan ahayn ee hay-adaha samafalka u shaqeeya looma ogoleen magaalada Muqdisho inay yimaadaan markii uu muxuu ahaa President Erdogan oo markaas ra'iisul wasaare ah iyo familigiisa ay yimaadeen oo xeriyihii barakacayaasha inta tageen carruurtii Soomaaliyeed ay kor usoo xambaareen soo qaadeen oo kuwa jidka dhinaciisa ku cayaaraya intaa u degto madaxweynuhu ag fadhiisto dhaay xaalkooda ka warsaday oo wixii ay baahida iyo dhibaatooyinka ay sheegeen in badan oo kamid uu ka jawaabay. waxay ahayd dawladda kaliya ee mucaawanada dadka Soomaaliyeed ay siinaysay, dawladda Soomaaliyeed u dhiibaysay oo dheysay dadkiina adiga ka taqaanaan meesha baahida ka jirta adiga ka taqaanaan waa tanaa qabta. waa dalka kaliya ee maraakiib isdaba socoto 20,000 oo tana isdaba socoto mar walba u dhiibaayay dawladda Soomaaliya wasaaradda arrimaha gudaha inta u dhiiba dhahay u qaybiya dadka adiga garanaysan sida loogu qaybiyo sida u kala duruufo badan yihiin. waa dalka markii
kaalmo aan weydiisanay iyo budget support ugu horeeyay dadka ugu horeeyay oo bangigeena iyo systemkeena dowladnimada lacag ku soo shubay ahayn oo yiraahdo socda waxaysta aaminaad qaata bangigeena dhaxal lacag geeyay ahayn lacag ku shuba waa dad maxaan ku yiraahdaa markii amaan darro iyo argagixisada dagaalkeeda aan galnay oo caalamka dhan uu noo soo gurmaday ayagana noo soo gurmaday si gaar ah noogu soo gurmado xariye inta dalka gudihiisa ka dhisay askarteena ku tababaray saraakiisheena qaaday maxaan ku yiraahdaa ciidankeeda inta gudaha ku tababaray haddana qalabeeyay qalab casri ah weliba siiyay ayadoo berigaas weliba cuna qabatayna saaran dalka qalab lama sii kara la dhahay saraakiisha dhalinta yar ee maanta ciidamadeena hogaaminaya ee saraakiisha dhexe ah iyo kuwa yaryarna dalkooda ayay ka yimaadeen intooda badan dalal kale oo walaala oo aanan saaxiiba oo aanan inkirin way jiraan waa dal maalintii aan u baahnayn noo yimiday dhibaatada mar kasta jirta dekedaan maamulkeeda dhib ku qabnaa waa idinla maamuleen waa idin maamuleen airbortkan dhib ku qabnaa waa idin qabanayna magaaladan muqdisho wasakh naga si aan u nadiifino waa idin nadiifinaynaa gacantooda darawaliin ay baabuurta kuwada qashin ku qaadeen markan sidaas daraadeed waa dalka noocaas walaalayaal maanta marka argagixisada gudaha nagula diraan waxaad ogtihiin dhammaan dalkeena bad aad iyo aad u weyn ayaan leenahay badeena muddo 30 sano ma ilaashanayn kalluunkeena iyo khayraadkeena waa la dhacayay wasakh waa lagu shubayay waxa sharci darraa oo dhan oo hub sharci darraa iyo balaayo sharci darraa oo dhan waa la marsiinayay caalamku markii wax ayaga xanuujinaya ay yimaadaan waana garab istaagayeen sida burcad badeedkii oo kale intaasoo kun oo maraakiiba barada la soo diray burcad badeedkii la dagaalameen waa joojiyeen wax fiican ay qabteen wax aad iyo aad u fiican ay qabteen laakiin burcad badeedka markii lala dagaalamay kalluunkeenana waa la guranayay caalamku maruu yiraaho xuduudihiina badda lama yaqaan waa xuduudihiina badda waa kuwaan dhahna waa la yaqaanaa waa UN ka soo register gareyn mar kale haddana lama waxayna in badeena kalluunkeena la daldalanayo oo la dhacayo waan ogeyn in badeena muxuu ahay la wasakheeyo waa ogeyn in badeena muxuu ahay hub sharci darra ay balaayo ay maraan oo dhan waa ogeyn waxaasoo dhan wax fiican ma ahayn laakiin cid naga kaalmayso oo si dhaba nooga kaalmaysa maanaan helin annaguna sida markaa waa kalluunkana waa noo soo curanayaa biru noo imaanaya arrimaan kalena maalin unbaa midba maalin baan joojin doona maanta xaaladdu waa isbedeshay dadaa yimida dhahayo badiyaan nus qaadanayna waaba qaadanaynaaba kenya iyo annagaa isqabsano walaa dadka dariska saaxiibadan kenya waxaan isku haysana waxay ahayd kenya waxay leedahay dhulkan biyahanan annagaa iskala helay biyo soomaaliyeed waa soomaaliya iskale laakiin waa qaadanayna nama dhehayni xuduuddaan isku haysan maya intay martaa iyo maya intay martaan isku haysan maxkamadda caalamka isla tagna maxkamadda waana soo kala saartay maanta annaga iyo Ethiopia waxaan intaax taagan horta ma aha xuduud iskuma haysano 100 kilomitir dhul Soomaalida inay soo marto badda Soomaaliya timaado oo qayb kamid ah qaadato waay waxaan isku haysano waa u kaalmo weydiisanay waxaan kaalmada u weydiisanaynaa Ethiopia in la diriro ma aha dal kale in lagu duulo ma aha cid kale in la maxaan ku raadaaye la dulmiyo ma aha danaheena dalkeena inaan difaacno in lagu kaalmeeyo dowladda Turkiga heshiiska aan la galnay horta intaas oo asalkiisa yahay oo maanta baarlamaanka Soomaaliyeed uu soo ansixiyay na kaalmeeya badeena sidaan u difaacno hadda maanta Turki soo duushay oo Ethiopia ku duulayso ma rabnana cid kale in la diriro ma rabno Soomaaliya gudaheeda in dowladda ajnabi ay wax isku diriraan ma rabno laakiin heshiiskani waa heshiis ka shaqeynayo dhaqaalaha badeena kalluunkeena iyo khayraadka badda inaan ilaashano ayuu Turkiga nagu saaciday kalluunka iyo khayraadka badda inaan ilaashano wax kastoo sharci darro ah oo badeena ka dhacayo oo caalamka ay fatagareynaya haday burcad badeed tahay hub sharci darro ah oo la marsiinay haday tahay daraagis iyo balaayo haday tahay argagixis dhex maraysa haday tahay dhammaan inay nala ilaaliyaan waayo waxaan heshiiska kula galnay inaan dal kale saddexaad aan ku duulno ama aan la dirino ma aha waa rajaynaynaa nimankan aan dariska nahay walaalaha reer Ethiopia inay kama dowladooda dadka reer Ethiopianka colaad suma qabla darisaan nahay laakiin dowladooda inay ka waantoodo dhulkii Soomaaliya qaar qaadanaya inay tiraaho
oo caqliga uu shaqeeyo waa rajaynaynaa colaad ayna imaan laakiin heshiiska maanta baarlamaanka soomaaliya uu ansixiyey waa kaas waa heshiis difaac iyo horumarin dhaqaale oo isla socda waaye heshiiskaasi waa heshiis xayndaab heshiis waaye brotocollo badan iyo heshiisyo badana kasii rakibmi doono oo kasii tafaasiilimi doono laakiin heshiiskaasi aakhirkiis wuxuu dhalaa oo hadafka ugu dambeeyo 10 sano ka bacdi iyo waqti lamida uuna gaarsiinay waxay tahay ciidan bad oo biyaheena difaaci kara inaan yeelano inta ka horeysana walaalaha ay nala difaacaan badda oo burcad badeedka iyo kalluumaysiga sharci darrada iyo kuwa maxaa waxyaabaha illegal activitieska howlaha sharciga aan waafaqsanayn oo dhan inay nagala ilaaliyaan waaye dadka Soomaaliyeed dad dowladda Turkiya waa dad aan aamini karno howlaha qaarkood cid kale maanta hadda heelano oo annaga shaqadaas idin qabalahayna maxaa dhacayna dhahaysana ma jirto cid doonno diyaar ma jirto marka waan raadinayna muddooyinkan dhan dal aan si bilateral ah oo gaar shakhsi ah intaan ula heshiino naga saacida amuurahaas Turkiya waxay noqotay dalkii ugu horeeyay oo diyaar noola ah dalal kale inaan heshiisyo la galno oo aan arrimaha badda iyo xataa aan kala sii heshiinana heshiiskaan ma xadidayo cid kasta oo danta Soomaaliya ay ku jirto waa la heshiinaynaa heshiisaan la galaynaa dowladda Soomaaliya magaceeda kula galayna walaalayaal haddaan dagaal ugu jirnay inaan dhulkeenna argagixisada aan ka difaacno aan ka xoreyno maanta waxaan dagaalkan u galaynaa baddeenna inaan ka xoreyno kuwa maxaan ku raadaaye argagixisada ah ama sharci darrada dowladda Soomaaliya shuruucdeedana ku xadgudbaayo shuruucda caalamkana ku xadgudbaayo mas'uuliyadda nasaaran ee caalamigana aan ku gudanayna hadii aan leeyahay heshiiska maanta baarlamaanka ka dhacay waa intaas dadka Soomaaliyeed waxa uu sheegayaa heshiiskaasi waa heshiis dhaqaale waa heshiis difaac Soomaaliya iyo Turkiga oo ka dhaxeeya dowlad kale iyo dal kale oo lagu nacbaynayo ama lagu colaadinayo ama lagu la diriraya hayna ma jiro aad iyo aad ayaa u mahadsantiin waa la badan yahay maantay golaha shacabka heshiisa la gudbiyay toddobaadka hore la soo galay Turkiga markii aad u keenaysay adiga iyo wasiirka gaashaandhigga waxaa dalbatay inaad warbaahinta banaanka ay mudanayaasha iyo shacabka Soomaaliyeed lama siinin waqti ay ku akhriyaan waa heshiis difaac Turkiga waa laga ahaadaan laakiin waa dal shisheeye maxaa shacabka Soomaaliyeed laga qarinayay oo maantay golaha shacabka qorka looga sameeyay heshiiska dalka Soomaaliya anaa madaxweyne ka ah qof iga dambayso oo dowladda iyo magaceeda iyo sovereignty-geeda ku hadli lahayd ma jirto heshiiska inta ugu muhiimsan waa intaas aniga aan ka sheegay in la qariyana maslaxadda dalkaana ku jirtay looma qarin sir iyo magaciisa ma aha documentigiisana official uu noqona gazetka ku soo baxa dadka Soomaaliyeedna way arki doonaan madaxweyne aad baa mahadsan tahay heshiiska la ansixiyay baarlamaanka meel mariyay mabadda difaaca ku saabsan soo heshiis amniga oo dagaalanka argagixisada iyo gudaha difaaca Soomaaliya soo waa arrin kooban badda Turkiya hore ayaan heshiis difaac oo argagixisada iyo la dagaalankeeda iyo dhismaha ciidanka dhulka horeyaan ula lahayn oo aan maxaan ku raahdaa oo u dhaqan galay heshiiska midka maanta ay badda iyo dhaqaalaha badda iyo difaaca badda oo ku kooban yahay waa mahadsantiin 10 sano uu soconayaa heshiiska hadii aan leeyahay heshiiska ay wadagaleen dowladda Soomaaliya iyo Turkiga shacabka Soomaaliyeed wuxuu ku jahwareersan yahay heshiis oo difaac oo Turkiga oo ku aadan in ciidamo loo diro badda mise waa in ciidan dowladda Soomaaliya oo dhanka badda ah loo dhisaa marka shacabka Soomaaliyeed soo ku jahwareersan waa warkayga waa ku dhinac maray haddaan sheegay heshiiskaasi waa 10 sano ciidanka badda Soomaaliya ayaa la dhisaya dhaqaalaha badda ee Soomaaliyana waa la iska kaashanaya gabdhaha haye waa la dhihi karaa laakiin sida aan u sheegay heshiiskani kuma saleysna in Ethiopia lala diray in Ethiopia lagu duulo shaqo kuma laha heshiiskani muddo ayuu doodiisa iyo sheekadiisa ay soo socotay waa isku soo aadeen
saas waa sida loo dhihi karo laakiin heshiiskan muddaa laga soo shaqeynayay waqti dheer oo horaa yaa tafaasiishiisa iyo wixiisa iyo lasoo waday haye haye baan heshiiska dee aayado qur-aana ma aha oo waa waxa dadka la qoray sida wax looga bedeli karo iyo sida dib u eegis loogu samay karo iyo sida u dhamaanaya kulli heshiiska u dhexad yihiin waxbaa laga bedeli karaa haddii duruufo kala soo baxaan waa la bedeli karaa waxbaa lagu dari karaa waxbaa laga dhimi karaa isaga dhammaa la baabi'i karaa intaba waa ka suurtagal aan ku celiyo mar kale heshiiskan Ethiopia iyo Soomaaliya qalalaasaha ka dhex taagan awgeed looma sameynin heshiiskan muddo hore uu soo socday waqtiga isku soo aaday ma ogi heshiis sanado laga soo shaqeynayo waaye waxa soo mushkiladda Soomaaliya iyo Ethiopia ka dhex taagan kuma xirna cilaaqaad la malaha haddii mushkiladda Soomaaliya iyo Ethiopia ka dhex taagan berri ay dhamaatana heshiiskan 10 sano waa uu soconayaa hadii aan la yiraahdo aad iyo aad u mahadsantiin assalaamu calaykum